السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلي عشرة ساس ما أنتو حقادنا حلقة بارشيلس بارشيلس ومركز إنا سبيسو فايل تلدون أو مركزي دوت SCSS كاسو مركزي أكو سمسجرتو استالس تلدون أو مركز وبسايت كدولي هاي يارانا دي بروجكت يا أدوي هاي يا دي كلب ميدل وياي ميد دحادة وحسب سجرتا طبعا فايلس تلدون أي أو سمسجرتا استالس كذا مركز قيوه تلدون أو وبسايت كذا وكجوية so مركز سمسجرتا بارشيلس تو حواي and breach stylist inuu kala jebiso into smaller .scss files kala duwan oo markaa .scss ah kuwaasoo loo yaqaano dabcan partials start with waxay ka bilaabanayaan underscore yani magaca markaa qori tusaale kale style.scss intaada dhihin underscore adhaysaa dabcan kadib hal file ayaa isugu keenaysaa kadib waxaa isticmaalaysaa dabcan use import to include them si aa usoo jeliso dhammaantood hal file ay ka wada dhigto import ay isticmaalaysaa sidoo kale organization ay ku samaysanaysaa projectyada structurekiisa haweysanaysaa sida file waxaad samaysanaysaa variables file base file components iyo file layout aad ku samaysanaysa so waxyaalo dhowr ah markaasi jiro marka partials aa u baahan tahay maanta marka waxaan isla arkaynaa partials iyo sida loo sameeyo so waxaan sameynaynaa sawiraanta hal folder aan gelin doonaa images folder aa u baxsanaysaa basic ku dheh marka qaybta stylishka dabcan waa kana stylekii la sameynayo weeyaan qaybta marka style.scss waa marka badanaa marka qaybo kala duwan website ka koobnaan doona marka qaybahaas marka waxaa la rabaa inaad file kala duwan aad gesho karto okay so waxaad sameysanaysaa marka folder.scss kadib filekan waxaad gelin doonaa dabcan folderkan sidoo kale indexka waxaad gelin karnaa sidoo kale folder waxaad dhigi karnaa dabcan html kadib indexka gelin doonaa haddii pages kale ay imaadaana dabcan isla meeshaas gelin doonaa okay so waxyaalo badan isbedeli doono waa arki doonaa sidoo kale sawirka kale waa bedeleysaa slash dot forward waxay noqonaysaa images sidoo kale hadda folder kale sii dhex gelisay marka waxaa dhehaysaa dot forward kadib images aa kusoo noqonayo kadib waxaa dhehaysaa logo sidoo kale 5 icon kale waa bedeleysaa dot forward kadib images kadib 5 icon sidoo kale waxaa kale isbedelaya qaybta stylishka marka waxaa dhehaysaa dot stylist kadib style.scss okay marka hadda waxaan samaysanayaa partials ayaa samaysan doonaa so waxaad ku samaysanaysaa folderkan dabcan add file adhaysaa kadib underscore kadib tusaale kale waxaa leedahay variables waxaa rabaa inaad file gooni aad ka dhigto waxaa dhihi doonaa variables.scss ayaa dhihi doonaa so variableska way badan doonaa dabcan intaanu keliya ku ekaanaya dabcan so soo goobiyeysanaya halkan ayaa best ku dhihi doonaa so variables hadda filekan goonida iyo ahaan doonaa marka sidee inta u isticmaali karaa tusaale hadda haddii aad dhaho watch saas waxaa arkaynaa in markaasi uu xogeer dhihi doono variableka ma jiro oo undefined waaye intana ma loo isticmaali karo because fileka loo ku jiraa so si loo isticmaalo inta loo isticmaalo dabcan way fududahay keliya waxaa dhihi doontaa dabcan import ayaa soo dhihi doontaa waxaa dhihi doontaa add import kadib fileka magaciisa ayaa sheegi doontaa iyo soo kale locationka dabcan locationka waa isla meeshaan marka waxaa dhihi doonaa dabcan variables okay so mar walba waxaa kaloo muhiim ah inaad terminate aad ku sameyso dabcan terminate caadiga ah semicolon aad sameyso haddii kale ciladu soo saaraysa ujeedid ciladan errorka soo saaraya meeshaan hoosena ujeeda error oo soo qoray so marka haddii terminate aad sameeyo success waa ujeedaan so already na filekan variableka oo soo akhri karaa iyadoo markaa xitaa file kale uu ku jira already marka qaabkaas fudud waxaa loo sameeyaa marka partialska waxaa sameynaynaa marka resetkan waxaa u sameysanaysaa meel gaara waxaa leedahay underscore reset .scss kadib paste ayaa ku dhehaysaa qaybta kale oo navigationkana dabcan oo header styleka gooni oo samaysanaysaa waa soo koobiyen doonaa kadib waxaa imaan doonaa meesha waxaa dhihi doonaa marka underscore header .scss kadib meeshaan ayaa paste ku dhehaysaa so dhammaantood waa inaad mar walba kusoo import gareysaa style.scss ka waxaa dhihi doonaa marka waxaad soo import gareyn doonaa labadii file hadda aa sameeyey so waxaa bedeli doonaa magacyada waxaa dhihi doonaa resetka marka waxaa fiican inaad u horumarsiiso sidoo kale variablekana aykan waa inaysan wax kale ka horumarin sababtoo ah se u isticmaalayaan iyo se u kala horeeyaan in loo kala horumarsiiyo weeyaan sida caadiga ee u kala horeeyeenba so hadda marka waxaa dhihi doonaa headerka u dambeysiin doonaa halkaana waxaa bedeli doonaa marka header so meeshaas aa ujeedid looma baahna in extensionki la qoro si caadi ah loo qoraa sida reset variables iyo header okay so markaa qorto dhammaantood markaa lasoo akrin doonaa so already hataa fiirino stylekeena
waxaa isbedelay folderka waxaa dhihi doonaa markaa slash wuxuu aaday html forward okay so marka hadda horta waa kana html saa ujeedaan dabcan stylekii sidiisa u qaatay haddana noqon lahayd reset page stylishka markaasi variableska iyo sidoo kale styleka caadiga markaasi navigationka ahaa so waxaa sameyn doonaa marka qayb marka hero session aan sameyn doonaa waxaa rabaa mawduucyo kale inaan isla aragno sidoo kale intii hadda aan samaysanana aan isticmaali karno oo aan markaasi implement gareyn karno okay marka hadda waxaa qori doonaa qaybta hero sessionka waxaa dhihi doonaa marka jalaas ayaa u samaysanaya hero kadib div ayaa sameyn doonaa kadib qoraal meeshaan ku qoran doonaa waxaa dhihi doonaa h1 I am graphic designer oo kale asomify okay kadib waxaa sameynaynaa paragraph so paragraphka lorem ay sii qori kartaa waxaa dhihi kartaa lorem 15 kadib button aan qaybta hoos ku qoranaynaa waxaa dhihi doonaa button so get in touch so qaybta hoos sawir aan soo gelin doonaa waxaa dhihi doonaa img.photo images kadib hero image so intaan sameynay marka isla fiirino intaan so waxaan sameyn doonaa marka inaa style gareeyo marka insha Allah styleskiisa kale oo waxyaalo dhowr aan baran doono waxaan rabaa inaan ciwaan dambe isku laarino balse hadda aan sii diyaarino waxaan dhihi doonaa marka hero so si fudud marka waxaan sameynaysaa display flags kadib waxaan dhihi doonaa justify content space between align item center okay sidoo kale haddaa rabti inaa style gareyso sawirka kale uma baahnid inaad dhahdo hero img kadib saan aa u style gareyso dabcan isla meesha aad ku qoraysaa img unbaa leedahay kadib sawirka waa style gareynaysaa waxaa leedahay width 600 already markaa sawirka waa la style gareyn doonaa so hadda waxaan imaqa marka inaa watchas aa dhahno waxaan dhihi doonaa watchas marka already waa kana uu shaqeynayaa okay so marka waxaa sameynaynaa hadda haddaa fiirino kana xageer aad u weyn waxaan sameynaa inaa yareeno marka waxaan dhihi doonaa div kadib waxaan siin doonaa width 35% so markaad soo jeedaan waa yiri marka waa style gareynaa xageerkana weyneyn doonaa waxaan dhihi doonaa divka ayuu ku dhex jiraa h1 to waxaan dhihi doonaa h1 font size 3 rem okay saas kale weynaanaya xageer qayb ka mid ah daarti inaa strong ay ka dhigto qayb kale waxaa sameyn kartaa inaa light ka dhigto kale so qaybtaan daarti waxaa dhigi kartaa let's see strong so already strong wuu yahay balse waxaa rabaa font weight inaa bedelo qaybtaan strong iska ahaato marka font weight markaa bedelo wuxuu sameynaa already kulli oo saameyn doonaa saas kale wuu saameynaa laakiin qaybta graphic design oo kale already saa ujeedi dabcan waa boldigeeda marka waxaa rabaa graftan inay israacdo waxaan sameyn karaa inaa cabirka yareeyo ama inaa width aan badiyo okay automify markii taas sameynaynaa iamtana marka waxaa yar soo yaray si markaasi wixii balanced u noqdaan okay intaas marka inuu filan tahay qaybta paragraphka intaas ku tahay buttonka marka waa style gareynaa already waxaa jira marka button style aan soo sameynay qaybta headerka marka waxaan sameynaa buttonka aan soo kubiisanaya marka halkaan soo geli doona marka wuxuu geli doonaa dabcan divkan kadib paste ku dhigi doonaa so haddaa fiirino dabcan buttonki waa la style gareyn doonaa sidaas kale so marka space aan siisan doonaa waxaan dhihi doonaa meesha laga hadlayo paragraphka iyo waxaan space waxaan dhihi doonaa margin bottom 5 pictures so marka paragraph sameysana so paragraph copy aan dhihi doonaa intaan paste p oo bedeli doonaa font size dabcan saa malo weyneenayo weightka sidiisa iska ahaado okay intaas sameynaa marka marginka marka 15 oo kale kaliya hadirtaan saas ujeed marka enough weeyaan styleka aad u qurux badan yahay waxaa sameyn kartaa hal dhowr ku darsan kartaa sida doonta u sameysan kartaa kan hadda waxaa u sameynay inaan isla fiirino features kale uu leeyahay saaska wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh